صلى على سيدنا نبينا محمد عليه وصحبه وسلم. maanta oo taariikhdu tahay 24 Febraayo 2021 waxaan halkan saxaafadda aan rabaa inaan kula hadlo anoo rabaa inaan bixin kooban aan ka siiyo dhacdo maanta ka dhacday magaalada Garowe oo ay ku dhimatay gabar magaceeda leeyahay Anisa Cabdicasiis Ciid geeridaas oo ah mid xanuun badan marka hore waxaan rabaa inaan tacsiil la wadaago eheladii iyo qaraabadii iyo waalidiintii iyo dadka ay ka geeriyootay waxaan leeyahay inaan ilaahu wa inaan ilaahu raajicuun ilaahay samireen ha ka siiyo ilaahay naxariistii janna ilaahay ka waraabiyo waxaan rabaa inaan xogaa iftiimiyo kiisku sida u dhacay kiiskaasi gabadhaas waxa ku dhacday xabad baastoodeed oo sida la sheegay ay ka dhacday wiil ay wada socdeen oo magaciisa la yiraahdo Nadiir Bire Ali dadkaasi dhalinyarada waxay la socdeen gaari waana wada socdeen sida muuqata hab nabadgelyo ay markaa ku safraayeen magaalada dhexdeeda Garowe waxay ahayd dad dhalinyaro oo saxaafadda iyo filmaan iyo sidii maartay baraha bulshada waxyaabaha lagu wacyigeliyo ka shaqeeyay ahaayeen kadibna waxa weeye dhowr qof ay ahaayeen 4 qof ay ahaayeen 2 gabdhood iyo waxa la socday 2 wiil oo kale sida darteed dadkii oo dhan uu ka mid yahay ninkii xabaddu ay ka dhacday Nadiir Bire Ali waxa gacanta ku haya booliiska iyo gaariga ay wateen xabaddii ay baastooldu ka dhacday dhammaan qalabkii oo dhan waana la baarayaa waxay ku jirtaa baaris insha Allah waqti aan dheerayn waxaan soo bandhigi doonaa baaristooda galkoodii iyo taarkii ugu horeeyay warbixintan waxaan u diray xeer ilaalinta sidaa darteed waxaan rabnaa dadweynaha inaan u iftiimino kiiskaas sida uu dhacay sidaas uu u dhacay waana wax kooban oo gacanta lagu hayo dhammaan marag iyo marag muujintii iyo dadkii iyo ninkii eedaysana ahaayo xabadda ay ka dhacay dhammaan saasaan rabaa inaan u caddeeyo dadweynaha saxaafadda horteedana aan ka sheegayaa wixii intaa dheer xilliga kiisku uu soo gabagabo gungaarka la sameeyo oo hay'adaha garsoorka loo gudbiyo waan insha Allah saxaafadda u soo bandhigi doonaa intaasaan rabay caawa inaan saxaafadda aan ka sheego aad baan mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh